طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي، وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة ماي رجة channel 2. halkaad naga daawanaysaan waa maay raja channel 2. waa rajadiina, waa rajadeeda, waa rajada ummadda Soomaaliyeed. siday tihiin, ma fiicantiin caafimaadkiina? meesha waxaan ku haystaa furuud ilaa 4 nooc ah. waxa waaye arbayga, amba maxay aheedo canabka, yoogar, ananas iyo moos. intaas waa insha Allah. intaan saxan ku jirto waaye, dhaxda wax ku jiro waa ananas, labada geesaha ka jirta canab oo waxa waaye laba kalar ah, iyo arbayga amba farowlaha sa u taqaaniin, iyo moos. waa intaan kaliya insha Allah. inta daayaysan mooski anaaska kala xataa waa ku darsan kartaa, inta kale waa iska dhaafi kartaa. inta ay haystid waa samaysan kartaa hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo insha Allah. ka faa'iideyso waa fruud yaro aad iyo aad u qabow, smooth ah, markii la afro kadibna la cuni karo, wax dhibaatana uu ku geysanayna maasha Allah, caafimaad mooyaane insha Allah. intaan isku soo darayaa, intaan markaa isku soo daro waan isku qasayaa, kadibna yogurt ayaa ugu shubayaa. yogurt waa yogurt chocolate ka samaysan, wax sokor ma lahan. marka maasha Allah asaga ayaa aad iyo aad ugu macaan, buskud oo kale u soo carfaa. maasha Allah tabarakallah. walaalahayga aan jecelahay meel walba dunida ka joogtiino, farxad iyo caafimaad ku noolaada, sidaad igu xiistay si lamid ah idinku xiisay. xoog baa idin jecelahay maasha Allah. walaalahayga qoraalada dhammaan isoo wada qoreen aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa. qoraalada qaar waa iskaga qoslaa, qoraalada qaar gabar abaaya waxay dhahday xaamilo ayaan ahay, ii duceeya inuu Ilaahay si caadi ah u foosho. waa qoraalada hadda ugu dambeeyo. qoraalku ugu koreeyo waaye Sumaya Cadde ah ugu qoran. abaay waa ku duceyna maasha Allah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaa ka baryaynaa si dabiici ah, way dhashay dhagsamo waaye, Ilaahay ha kuu fududeeyo. 4 indhood oo nabad ah, umushi isxambaarsta Allah ka dhigo, aamin yaa rabbi. dhammaan inta kale aan soo sheegin sidoo kale ayagana waan ku xusayaa, inta xaamilada oo dhammaan. haddana abaay Sumaya dhahday ducadaasna ayada madaxeeda dhammaan xaamilooyinka aan wada duceyneynaa. aan isku duceyno. qof walba hooyo ee maalin bay foosha sugaysaa, ifka hadday saaran tahay ay u qoran tahay in ay walaad dhasho insha Allah. hooyooyinkeenana naxariista adduunya Allah siiyo, aakhirana fil janna, aamin yaa rabbi. dhammaan waalidiinteena, dhammaan hooyo aabo, maasha Allah. fruudkii dhammaan waa isku soo qas sida arkaysaa, dhammaantood waa isku soo qas maasha Allah tabarakallah. marka isku soo qas kadibna koobabka ayaa hadda dhigaa maasha Allah. qoraaladii arkaa sidoo kale dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin qoraaladiina akhrinaa. gabar walaashay Nuuro Qurux habeen ee dhahday, Nuuro Qurux habeene khayr Allah ku siiyo, waxay dhahday xayeysiintaadii Herbalife baaba ka reesan ee dhahday fiidiyowgaaga hadda waa la daawan karaa. hadda Herbalife xayeysiya xataa inay iigu ka baxdaa fiicnaa lahayd, laakiin waa ka xumahay. Herbalife mar walba ma ka maarano, xayeysiina hadda wayba ka dhantaabo, sababtoo ah jawaabaha iyo ducooyinkana la soo celinayo aan ugu filan. qof walbana markoo oo yacni oo xayeysiinayo productionkiisa amba company-ga asaga oo businesska ka wato, waa qasab in uu sheegaa. marka wax aad dhaaf ma jirto, laakiin jidka ku soo jira Nuuro, taas la soco insha Allah. maasha Allah tabarakallah. haddana fruudkii ayaa saas ugu soo shubaa marka hore, kadib ayaa yogurt ku soo daraa insha Allah.
gabar walaasheen waxay dhahday xawaajiyada adiga dhahdaa la iska yareeyo my rajo maxaa dhaca xawaajigu shiidani ana intaas xawaaji hal mar hala karsado ma dhihin laakiin xawaajiga markii lagu daraayo carafta hal iska yareeyaa la iska badinaa dhahay laakiin guri xawaaji la-aan absolute ma dhiciso insha allah abaayo maasha allah fruudkii yogurtii hadda kusoo shubaa insha allah walaashay kalena waxay dhahday muniir weji bucbuca ahaa jirtay weji butac awo erayga butac le saa u nacale maxaa ku daaray idhaada wax ma idaara abaa jaceylkiina la ihaayo waa idin jeclaha ma jirto weji butac ay dhihin ilaaha ay soo bixiyay taas ilaahayna ma ii celi inta dhimanna allah ka soo aruuriy insha allah waxaa la rabaa hooyo actiife hooyo caafimaadkeed ka shaqeyso hooyo gurigeeda ka shaqeyso hooyo waa hooyo waa taas ma ahan hooyo mashquul badan ma ahan hooyo ku mashquulsho dadka kale hooyo ku mashquulsho diriskeeda lama rabo hooyo naftaada ku mashquul hooyo noloshaada ku mashquul arday haddaad tahay ardaynimadaada maxaad mustaqbalka hiigsani maxaa mustaqbalka samayn kartaa maxaa oo yacni aad adweynaha yacni amba gurigaada aada u qaban kartaa intaad ifka saaran tahay biri dhima doontidaa maanta dhima doontidaa allah og saacadahan kula hadlaayo filinka uu kusoo gaaro aniga codkayga aad maqlaysid saacado kadib inaad dhimanaa allah og sax marka qof walba waxaa fiican in uu adduunka intuu saareen oo ugu tago wax uu higsan karo amba wax uu himiladiisa amba wax uu ku hamin karo hooyo waataa qofka islaamkana intaasaa looga baahan yahay in uu cibaadaadkiisa iyo diintiisa uu ku guto allah subxaana watacaala wuxuu ifka u keenay mashquul sameynin marka waxaa leenahay caafimaadkiina ka shaqeeya caafimaadka wax ka fiican ma lahan hooyo waa hooyo laakiin hooyadii active dadkan wadamada cadaanka aa joogin waxay ku faanaan markay hadlayaan amba ay qudbeynayaan kow waxay ku bilaabaan aniga waxaan ahay hooyo waxaan haystaa intaas caruur waxaan ahay hooyo active wax kale ma dhahaan waxaan ahay hooyo active waxaan ahay hooyo nutrition ku nool waxaan ahay hooyo caafimaad ku nool maalintii waxaan sameeyaa intaasoo exercise maalintii intaas socdaa kanaa socdaa way ku faanaan insha allah anagana kuwii ku faana allah naga dhigo bahalkan yar waxaa ka dalbada website furuudyada ayaa lagu soo surtaa markii oo qaande iyo waxaa siisan amba sharaxaad oo kale ayuu galaa asagana waa iskaga soo suraa insha allah marka sidaa ayuu furuud kusoo baxay aad iyo aad buu qurux badan yahay walaalayga reer mayra jameel baa joogtay ilaah subxaana watacaala waxaa idinkaga barya caafimaad inta haysato allah u siyaadiya intaan haysan yaa rabbi allah siiyo insha allah kuwa caafimaadkood ka shaqeeya noqda waa kana baalkan caagaas yaroo wataa saasuu ugu dhex jiraa isagoo dhan waa 6 xabo webseedaan ka dalbaday maasha allah walaalahayga aan jeclahay waxaa idin leeyahay farxad iyo caafimaad meel walba adduunka joogtiino hooyo active hooyo caafimaad qabto aabba kadalik walaal dhammaan insha allah kuwii isku dabadaysado misana is hogaamiyo misana wax walba role model isku noqda allah naga dhig aamin yaa rabbi waa inta caafimaad haysato oo adduunyadan waa dhowr nooc loo kala baxaa qaar baa xanuunsanaya qaar baa caafimaad qabo kulli shay alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iskale allah subxaana watacaala mar walba ugu mahadnaqeynaa insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak meel walba aad joogtiino fruudkan yaroo quruxda badan aa idinla jeclaaday naftiina ku qaboojista run ahaantii jirka qofka biniaadanka waa sida dhirtii oo kale markaa wax qurux badan cunti misana wax qurux badan aa gelisa aad buu u qurux badnaanaa bisha ramadaan sidoo kale burka cad bariiska cad baastada cad intaasoo dhan haddaa calooshaada ka yaraysa aad baa u qurux badnaanaysaa maasha allah inta kaloo la cuna adduunka way tahalaa intaasoo keliya anaga naqaanaa like waa ka xumahay maasha allah walaalahaygii kadib hadda waxaan sameynayaa malawaxii aan idiin tusinaya xalay aan soo sameeyey malawaxaasoo kale le waayo waxba idiima tusinin fideoga ka horeeya ku jiraa aad iyo aadaan ugu maastin fideoga sida quruxda badan oo qiimaha ku dalaysan aad u daawateen misana aad leegt u saarteen maasha allah allah idin barakee waa malawaxii naftirkiis dhowr nooca loo sameyn karaa hadaarta qudaara ku cuni kartaa hadaartana noocan weliba noocan aad iyo aad buu u macaan badan yahay asagana bacdal anfur ayaa isku qaboojin kartaa sida toortadii oo kale ayuu kusoo baxaa maasha allah waxaa kaloo arkay habeen anoo aroos joogo waxaan arkay maamo oo dhahday caruurteeda waxay dhaheen hooy rootigan toortada ayaa ku baray rootiga yogurtka dhex sameyn jiray marka maasha allah ayadan meesha isku soo baranay aadaan ugu farxay maamadaas sharafta badan qaalida ee walaashay waxay dhahday macallimadaadii aalii dhahday marka wax walbo guriga ku dhex samaysan karnaa anagoona meel aadin inta noo taalaan noo macaanayso insha allah inta haysataa
allah u siyaadiyo intaan haysan mar walbana allah siiyo aamin yaa rabbi yogurt ayaa saan ugu soo shubayaa sida toortadii oo kale aan ugu soo simaa insha allah kadibna fruitka ayaan kusoo shubaa hadda kadibna waa iska daboolay waa iska dhigaysaa waxaan dhan dhexdu iska galaa smooth oo isku noqonaa 2 saac 3 saac kadib waxaad dhehaysaa toorta miyaa intee laga keeno wadankee lagu soo sameeyey jeena maa lagu sameeyaa dhehaysaa laakiin may rajali lagu dhex sameeyey maasha allah allah idin barakeeyo inta cuntana la daaweeyo badan walaalo badan ay la soo qaybsado snapchat dealed instagram whatsapp asalaatooyinka quruxda badan insha allah dhammaan waa ka wada helaysiin inta allah subxaana wa tacaala naga soo qaado aan sameeyo insha allah idinkana waa ka heli doontiin waana ka faa'iidaysan doontiin walaalaheygii xoog baa idin jeclahay sidaa ii jeceshiin baa idin jeclahay farxad iyo caafimaada idin leeyahay meel walba adduunka joogtiino insha allahu tacaala videoga hadduu kusoo gaaro u sheer garee walaashaada walaalkaaga u sheer garee leeg haddaad nagu cusub tahay subscribe soo dhawow subscribe keena cusub kalena soo dhaweynaa gabar abaaya waxay dhahday waa kugu cusbahay thank you so much abaay ii soo dhawow qalbi furo iyo niyo saafi ee kusoo dhawow dhammaan walaalaheygii hore reer marriage ila joogana sidoo kale waxaan leeyahay kal iyo laab sidoo kale idinkana soo dhawaada aad iyo aad baa umahadsantiin jazakumullahu khayr alif khayr mar walbana sida iigu soo duceysiin baa idinkugu soo duceeyaa insha allahu tacaala wixii wanaag ah annaga insha allah waa isfareynaa oo khayrka ku jiro allahna waafajiyo wixii shar ahna shaydaan ay kaata allah naga haayo insha allah waa kaasaa sidaan ayuu kusoo baxay malab ayaa haddana kor ugu sii dhijiyey maxaa ku falaysaa waa kaasaa waa sida toortadii oo kale had dugaamanka waaweyn marka aadi sidaan ay u samaysan yihiin gurigaadaa ku samaysan kartaa aad ku quruxsan kartaa mindidaasaa lagu jarjaraa hadhow markii la cunayaan ka hadlaa hadda ma taabanay sidiisa miiska ku saaraa insha allah marka walaalaheygii sidaan ayaa usoo sameeyay waa cunto yaroo fudud oo caafimaad ah oo haddana jirkaaga wax badan aa ugu dareemaysid oo bisha ramadaanna aad waa ku qoyeysaa sababtoo ah ma aha wax culeys kuu keena misana gastri kuu kicinayo misana calool xanuun amba daaca qurun kuu kicinayo kalo laakiin waa wax yaroo caafimaad leh gacantaadii afkaaga wixii galaayo marka sidaas ayaa fiican insha allah sidaas ayaan haddeertan usoo diyaariyey miiskii wixii dhan saasaan ugu soo sharxay maasha allah kanna waa sheegayga herbalife shake asagaa ku anfurnaa kadibna waa casheenaa kadibna asagaa ku suxuuranaa iyo shaahigeyga iyo dacaarteyda insha allah afurkeygana waa idinla qaybsan doonaa sidaa u sameeyo sheegeyga iyo maxaydo gabar walaalaa jirtay dhahday sheega herbalife sidaa u isticmaashiina afurta nala qaybso okay taxta amriga waa idinla qaybsanaa waxaa kaloo jirta gabar walaashay dhahda walacaan ahay myra joy abaayo gabdhaha walaca way badan yihiin dhowr nooc gabdhaha dhanaan cuno gabdhaha macaan cuno marka insha allah taasna waa arkeynaa anoona video caadi u fadhiyaan taas ka wada hadli doonaa insha allah aad iyo aad umahadsantihiin walaca dhanaan jecel jir iyo walac macaan jecel marka dadka isku mid ma ahan qofka markuu walac yahay wax walba uu xun yahay wuu uraa markuu 9 bilood iyo 8 bilood gaara ayay roon yihiin cuntooyinka qaar la cuni karaa marka waxaa idin la ilaaha idin fududeeyo meel walba joogtiin waa idin soo duceynaa idinkana noo soo duceeya yaa rabbi insha allah walaalahaygaan jeclahay meel walba adduunka joogtiin waa rajadiina waa rajadeyda waa rajada ummadda Soomaaliyeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh